Audio Jungle. wacan oo wanaagsan daawadashana ku xiran channelka Som TV Soomaaliya waxa idin leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak kullu caam wa antum bikhair maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha May 2022 oo maalintii saxaafadda adduunka saxaafadda adduunka dhammaantiin waxaa idin leeyahay hambalyo inta wariyaal ah hambalyo idin leeyahay gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan Soomaaliya iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed gobolka ay joogaan waxaa idin leeyahay hambalyo idin leeyahay waxaa idin leeyahay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair fiidiyoga uma tagaleen inuu dheereeyo waxaan ugu talagalay inaan ugu bashaareeyo suxufiyiinta adduunka dhammaantiin wasalaamintiin halkan waxaa ka salaamaya agaasimaha guud ee Som TV Soomaaliya Cabdiqaadir Xasan Cali iyo maamulaha guud Som TV Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Nuureyn anigoo ah wakiilka guud Afrika Cabdiqaadir Maxamed Faqi oo idin leh hambalyo suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay suxufiyiinta Soomaaliyeed dhammaantiin hambalyo Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair hambalyada waa dhankiina asxaabteyda ku xiran channelka Som TV hambalyada waa dhankiina hambalyada kumati waxaa ka dhigtaan hambalyo oo kaliya dhammaantiin waxaa leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak kullu caam wa antum bikhair let's go Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo fursadan ka faa'iideysanayo maanta kuna hadlaya magaca shaqaalaha Som TV Soomaaliya ahna maamulaha Som TV Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ku sugan London waxaan dhambaal hambalyo u dirayaa dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka loo dabaaldegayo 3 bisha May 2021 marka waxaan idin leeyahay hambalyo walaalayaal si aad la socotaan saxaafaddu waa shay qaali ah waana isha kaliya ee bulshada ay wax ka dhageysato sidaa daraadeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo dowladda federaalka ah in saxaafadda iyo suxufiyiinta la tixgeliyo sharciga saxaafadda oo caalamiga ahna lagu dhaqmo iyo midka dowladda federaalka ah insha Allahu tacaala waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahda Som TV Soomaaliya meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan kuwa ku sugan Soomaaliya Muqdisho iyo Baraawe waxaan idin soo dirayaa salaan diiran oo maanta munaasabadan aan uga faa'iideysanayo waxaan salaamayaa agaasimaha guud Som TV Soomaaliya Cabdiqaadir Xasan Cali waxaan kaloo salaamayaa wakiilka Som TV Soomaaliya u fadhiya Afrika Cabdiqaadir Maxamed Faqi iyo dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaamayaa dhammaantood suxufiyiinta Soomaaliyeed waa lafdhabarta saxaafadda dhammaantood waxaan leeyahay jiro oo jooga